magaalada Jowhar caasimada dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa maanta waxa lagu qabtay doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabelle iyadoo kursiga madaxweynaha ay u tartamayeen laba musharax. Doorashada kursiga madaxweynaha ayaa waxa ku guuleystay madaxweyne Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe oo helay codad gaaraya 86 cod, halka musharaxii la tartamay Cabdiraxmaan Jimcaale Cismaan uu asna helay codad gaaraya 13 cod. musharaxii la tartamay Cali Cabdullaahi Xuseen ee Cabdiraxmaan Jimcaale Cismaan ayaa u hambaliyay madaxweynaha 4 sano ee soo socotay ee Hirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaabe. Cali Guudlaabe ayaa sidoo kale dhankiisa waxa uu u mahadceliyay xildhibaanadii codka kalsoonida siiyay. anigu waa guuleystay, Cali Guudlaabe waa guuleystay. dhammaan inta halkan ku jirtaana way guuleysatay iyo inta maxaan ku iraahdaa ku absirsata Hirshabelle. waxaan rabaa halkan inuga mahadceliyo guddiga doorashooyinka kii hore iyo kan baarlamaanka intaba oo isu soo dhiibay doorashada isu soo dhiibay. الأول الله أيام مهد علينا سبحانه وتعالى وبرسسك مدة الصعدي نبتقلين نوجو سود وياي يدون هالمال وح خلافة يوح شغاغا إنك كدعين هالمال الهبيرات وح نباتا إنك كدعين الله أيام مهد علينا مركب رباط وحرب إلى مهد عليو اللي بانا دولة قبلت هيرشابelle عدكود السياي ogolaaday 4 sano soo socoto inaan yeesho go'aanka ugu dambeeya dowlad goboleedka Hirshabelle waa ugu mahadcelinaa waa mahadsantiin xildhibaanadayda ayaan leeyahay. dhinaca kale kursiga madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabelle ay u tartamayeen Maxamed Maxamuud Cabdulle Maxamed Dheere iyo Yuusuf Axmed Hagar Yuusuf Dabageed ayaa waxa ku guuleystay Yuusuf Axmed Hagar Yuusuf Dabageed kaas oo helay codad gaaraya 87 halka Maxamed Dheere uu helay 12 cod. Maxamed Dheere ayaa u mahadceliyay xildhibaanadii baarlamaanka Hirshabelle sidoo kale u hambaliyay madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle. Yuusuf Dabageed ayaa sidoo kale asla dhankiisa waxa uu mahadcelin ballaaran u jeediyay xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabelle. shalay khudbadeena waxa kamid ahayd indhaha inaan furno ayaa la rabay, indhaha waa noo furan yihiin. qofkii ku fikiraya Hirshabelle inaysan dad lahayn maanta hoolkaana markhaati ka ah in meel laga soo galay. waxaan rabaa dardaarankii shalay inaan ku celiyo mar kale. xalay si fiican baa loo seexday, kalsooni ayaad ku seexateen, kalsooni aad cod ku siiseen, ciidida qasabtay ma jirto. aniga Hirshabelle ayaan u dhashay, Hirshabelle aan ahaan doonaa ilaa aan ka dhinto. marka meel idinkama jiro hadal badan hadda maanta ma karo. waxaan kaloo rabaa baarlamaanka Hirshabelle in mar labaad iyo mar saddexaad asigana u mahadceliyo ballankaan shalay ballanoo igula heesahay waa fulideen. aadaad u mahadsantihiin, codsigii shalay waa ka jawaabdeen. Maxamed Ibraahim Amore, Home Cable TV, Jowhar.